waxaan hareeyay maalin weyn oo fadli badan maalin ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomihiisa oo in badan oo kamid ah oo ka xoreeyo naarta waa maalin fadli badan fadligiisana in badan uu ku soo arooray diinteena waxa kamid ah fadligiisa in ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf balaaran oo muslimiinta siinayo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa laga wariyay inuu yiri siyaamu yawmi arafa ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu maalinkan ka hadlayno waa yawm arafa waa maalinka sagaalaad ee bisha dhulhijja ee hadda aan ku jirno nabigeena waxa uu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam soomida maalinka arafo waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala uga ajir xisaabsanaya inuu iigu dhaafo sanad tagay dambigiisa iyo sanad soo socdo dambigiisa waxa kamid ah fadliga weyn ee maalinkan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan oo doomihiisa kamid ah uu naarta ka xoreynayo haddii aan soo marnay ramadaan oo habeen walba ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomihiisa in kamid ah uu naarta ka xoreeyo yawm arafa waa maalinka ugu badan ee ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomihiisa uu naarta ka xoreynayo waa maalin ducada la ajiibo waxa laga wariyay rasuulkeena inuu yiri khayru du'aa'i du'aa'u yawm arafa du'a waxa ugu khayr badan ducada maalinka arafo wa khayru ma qult ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير waxaan ugu khayr badan buu yiri rasuulkeena waxaan dhaho aniga iyo anbiyada iga horeysay kalimatu tawxiid la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومالin ilaahay subhanahu wa ta'ala uu diinteena noo dhameystiray oo ay soo degtay al-yawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحا عمر وإماضي مالما كمد نين يهودي وحاونا كويري آيات كمد كتاب كينا هدي أي نغسو دقي لهذا النغو يهود مالين كاس وحان كدقان لهين مالين عيد وحاو دي عمر آيات آياتهاي يهودي جنا وحاو كجوابي اليوم أكملت لكم دينكم وحاو عمر وشيغي in uu garanayo maalinka ay soo degtay goobtii ay ku soo degtay ayna ahayd maalin jumco ah rasuulka oo taagan banka Arafo waxa hadaba mudnaan leh inaan uga faa'iideysano maalinkan soon maalinkan in la soomo fadligiisa waatii aan soo xusnay waxa kale oo muhiim ah inaan uga faa'iideysano xuska alle laana waa maalinka ugu khayr badan oo ducadiisu khayrkeeda u weyn yahay takbiirta maalmahan waxa loo qaybiyaa takbiir furan iyo mid waqtiyo kooban ku xadidan takbiirta furan 10ka maalin way iska soconaysaa laakiin midda waqtiyada gaarka ku xadidan waxay bilaabanaysaa fajarka yawm arafa ila laga gaaro maalmaha ayaamu tashriiqa casar gaabkooda maalinka ugu dambayso waxa kale oo maalmahan ahkaam fara badan oo muhiim ay ku jirtaa udhiyadii iyo maalmihii la udhiyeynay oo ayaguna qofka inuu maaragtay uu ka faa'iideysto muslimka ay muhiim tahay udhiyadu waxay ku gudaysaa xoolaha saddexda nooc geela iyo lo'da iyo ariga waxaana muhiim in ay ka fog yihiin ceebaha sida cudur cad oo ka muuqdo neefki curyaannimo muuqato oo cad in neefki indhaha uu leeyahay oo kaleeto iyo caato muuqato weyd inuu neefku yahay ceebahaasna waa in qofka xoolaha uu ku udhiyeenayo uu ka taxadaro waqtiga ay bilaabanayaan udhiyadu waa ciida markii la tukada kadib ilaa maalinka 13aad ayaa mutashriiqa maalinka 3aad ee ugu dambeeyo casar gaabkiisa بهذا القدر نكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.